waddanka Djibouti ayaa looga dabaaldegay 46 sannadood oo ka soo wareegtay markii dalka Djibouti xornimadiisa uu ka qaatay waddanka Faransiiska sanadkii 1977. munaasabada ballaaran oo beryahanba ka socday caasimadda Djibouti laguna weyneynayo maalinta calanka iyo xorriyadda ee waddanka Djibouti ayaa waxaa 27 bisha Juun oo ku beegnayd sanadkii 1977 ay xaflad aad u ballaaran lagu soo bandhigay meel kaga beegan caasimadda Djibouti dhinaca galbeed, waxaana gaardaka ciyaar ku soo bandhigay qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay ciidamada kala duwan ee waddanka Djibouti. dhinaca Somaliland waxaa uga qayb galay safiirka Somaliland u fadhiya waddanka Djibouti Ambassador Cabdifataax Siciid Axmed, isagoo oo la meeqaam ahaa safiirada dalalka shisheeye u jooga waddanka Djibouti. markii ay bilaabantay munaasabada xuska 27 bisha Juun ee maalinta xorriyadda Djibouti ayaa waxa goobta soo gaaray ugu horreyntii saacadu markii ay ahayd 6:15 subaxnimo madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti, waxaanu salaan sharaf ka qaatay qaybaha kala duwan ee ciidamada dalka Djibouti. ugu dambeyntii safiirka Somaliland u fadhiya waddanka Djibouti Ambassador Cabdifataax Siciid Axmed oo isaguna ku sugnaa goobta ay ka dhacday xafladaasi 27 bisha Juun ee maalinta xorriyadda Djibouti ayaa hambalyo u diray ummadda reer Djibouti. bismillaahi raxmaani raxiim. runtii maanta ay tahay 27 Juun 2023 waxaan u hambalyeynaa xukuumadda Djibouti oo hormuud u yahay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele xukuumaddiisa iyo qaranka Djibouti oo dhan. waxaan leeyahay hambalyo waxaan leeyahay sanad guuro wanaagsan 46 guurada ka soo wareegtay markay xorriyadda ka qaateen dowladda Faransiiska. marka waxaan leeyahay hambalyo waxaan kaloo doonaa maanta inaan kaga faa'iideysto iyadoo ciid ay tahay berrito haddii la yiraahdo aan leeyahay ciid mubaarak. maxaa ahaydo jamhuuriyadda Somaliland golayaasha qaranka xukuumadda madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi ugu horeeyo waxaan leeyahay ciid mubaarak. anoo maanta ka faa'iideysanay labadan ciidood isdhex galay maanta iyo berriba. waxaan leeyahay hambalyo jamhuuriyadda Djibouti mar walba dalkan walaalaha nahay. marka waxaan leeyahay sanad guuro wanaagsan baa u dhacay soo arkaysaanba oo runtii xukuumadda Somaliland lagu soo casuumay maanta aan matalayo. marka maasha Allah waxaan leeyahay hambalyo ciid wanaagsan laba ciidood baa isku dhacay maasha Allah. Maxamed Jaamac Waale, warbaahinta qaranka Somaliland, Djibouti.